toban waxyaabood oo farmaajo u gooni ah madaxweyne kale oo la doortayna uusan horay u samayn ayaan idin la wadaagayaa. Farmaajo waa madaxweynihii ugu horreeyay ee isku dayay inuu qaarajiyo madaxdii ka horreysay iyo madaxweynihii isaga xilka ku wareejiyay Xasan Sheekh Maxamuud. Waxa uu rasaas nool u adeegsaday shacab banaanbaxyaal ah oo uu horkacay ra'iisul wasaarihiisii hore. madaxweynihii ugu horreeyay ee doorashada qaranka dood qabiilsal uga dhigay isaga oo xil qaran haya ayuu ujeedkiisu noqday soo xulista xildhibaanada beeshiisa ee markaasi ka imaanaya gobolka Gado. madaxweynihii ugu horreeyay ee dagaallo doorashooyin quseeya ka oogay dhiig Soomaaliyeedna ku daadiyay magaalooyin dhowr ah sida Muqdisho, Baydhabo, Dhuusamareeb, Beledweyne iyo Beled Xaawo. madaxweynihii ugu horreeyay ee magaalo Soomaaliyeed cunaqabatayn saara wixii ka dambeeyay 91dii waa Kismaayo. madaxweynihii ugu horreeyay ee xilka u xushay dadka ugu liita bulshada kuwa oo xirfadda kaliya ay leeyihiin ay tahay inay hayin u noqdaan isaga. madaxweynihii ugu horreeyay ee wiilal Soomaaliyeed u hibeeyay Itoobiya aqbalayna in dhiigoodu ku daato difaaca dal shisheeye. dawladda waxaan ka codsaa wiilkaygi anay nolol iyo gaari iigu soo baahiyaan. madaxweynihii ugu horreeyay ee dawladda Djibouti aan walaalaha nahay si toosa iyo si dadbanba xiriirka ugu jaray isaga oo ka doortay Eritrea iyo Ethiopia. madaxweynihii ugu horreeyay ee muwaadin Soomaaliyeed u gacan geliyay Ethiopia sidoo kalena argagixiso u aqoonsaday ururka gubernamadoonka ee ONLF. madaxweynihii dib u soo nooleeyay qabyaaladda antidii qarankana u isticmaalay dacaayad reeraysan oo ka dhan ah madaxdii ka horreysay iyo in isaga la ammaano. madaxweynihii ugu ballanqaadka badnaa uguna ballanka bixista badnaa ayuu noqday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.